السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنكم سلام يا ولد المركز أجوكت النبض نحرس أيكم رجينية. وحنا نكعد سنة يا إن أساسا وقت جاجا دقيقة كومن أو أنكسر جدبيه أذين عجا شغلين هنددات الله يصلح دحيا عيا برها بالشدة مع المير صراف. سي الشخصية أنا إيه ويرانية. سيدا أن وضع أكسرنا هاي الشيء كولي بوحي لهذا هلا بدنا. maanta waxaan markii koowaad ka hadli doonaa dhankayga waxayna noqon doontaa markii ugu dambeysay noloshayda aan ka hadlo. ugu horeyn qodobka koowaad waa tala soo jeedin ku aadan dhalinyarada rag iyo dumarba leh ee baraha bulshada isticmaala. waxaan kaliya oo adiga ku leeyahay ilaahay ka baq oo ilaahay xasuusno. qabri baa ka dambeeya iska daa muuqaalada aad isku dhex jarjaraysid oo aad is leedahay qof mentalkiisa caafimaadkiisa iyo waxa weeye shakhsiyadiisa aad wax ku yeeshid. weligaana markhaati ha ka noqon wax aadan waxba ka ogeyn. sheeko walba oo dhacda oo kusoo martana dhexdhexaad ka ahaw adigoo aan qofna eedayn. haddii aad rabto inaad wax tabiso oo aad baraha bulshada la wadaagto fadlan waxaan kaa codsanayaa raadi xaqiiqada iyo xogta sheekadaas oo sugan. weydii sheekadaas dadka goobjoogayaasha ka ahaa ama dadka ay ku dhacday si hoosna ula xiriir xaqiiqdana soo dhuuc adigoo aan wax khaldan baraha bulshada la wadaagin. anigu shakhsiyan colaadna waan aqaanaa nabadna waan aqaanaa. dadka qaar qiiqa ay shidayaan wallaahi ma qarin karo. qodobka labaad wuxuu ku socdaa hooyo walba iyo aabbo walba oo Soomaaliyeed oo awlaad dhalay ama koriyay. wuxuu kaloo ku socdaa qof kasta oo lagu weeraray ama loogu cagajugleeyay baraha bulshada. waalidka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hooyo iyo aabbo haddii aad aragto ilmahaagii oo baraha bulshada loogu cagajugleynayo lagu liidayo lagu handadayo eedayn iyo dhalaaca aysan lahayn lagu tirayo ha murugoon. ilmahaagu wax aysan lahayn noqon maayaan. ninna ceeb uusan lahayn ma qabsanayso. ceebna waa mid kugu taal iyo mid lagugu tiro. ku kalsoonow awlaadaada barbaarintoodii iyo ku kalsoonow noloshii wanaagsaneed ee aad isla qaadateen. qof adduunka dhinac kale ka fadhiya oo aan aqoon shakhsiga adiga aad dhashay ama aad soo korisay qiimaha uu ku fadhiyana waxba ma yeeli kara ilmahaaga hooyo iyo aabbo. qofka dhallinyaradaayo mid iga maqal oo hadalkan adiga iga qaado. waxaa la yidhi qof ciid kugu sayriyey waxba kuma yeelin laakiin calooshiisa ayuu ku tusay. dadka cyberbuliga ah ama baraha bulshada dadka ka dhibaateeya waxba kuma yeeli karaan laakiin waxay tijaabinayaan inay wiiqaan awooddaada qofnimo iyo dadnimadaada. midna ogow sideedaba waayadan dambe fulay caadaqaate mashaqayste diinlaawe qabyaaladiiste matabcade jaahil iyo maxishoode qolol bay isku xireen. habeenkii baa u maalin ah maalintii baa u habeena. waxayna ka shaqaynayaan si ay qof aan la joogin ee caalamka dhinaca kaga nool ee faraxsan ee adduunkiisa raacday siday ku hanjabin lahaayeen. maalinkay arkaan inaad horey u kacday ee dadaashay adduunka wax la qaybsatay tafaha ayay kugu dhigayaan si ay kuu geeyaan booska ayagu ay joogaan. qodobka saddexaad waxaan uga hadlayaa arrin si shakhsi ah aniga igu saabsan. horeyna aanan weligay uga hadlin maantana waxaan diyaar u ahay inaan uga hadlo si faahfaahsan. waana arrin ay igu soo eedaysay qof dumar ah oo aan guursaday 5 sano ka hor oo aan kala tagnay 2 sano ka hor. isku meel iyo isku magaalana aan hadda ku noolay. mid ayadaan leeyahay midna bulshada ayaan leeyahay. mid ayadaan leeyahay oo in adeeray warkaygu markii u dambeysay ha ku soo gaaray. intaad iska daysaan riwaayadan aan u baxshay cad kalow ku cunay ama ku ciideeyey dalkanay ku noolahay ingiriiska dawlad ayuu leeyahay. qof walba wuxuu leeyahay IP address internetka oo ka isticmaalayo. u tag booliiska ha lagu raadiyey IP addresska aad sheegaysa in wax lagaga faafiyey ee ayagaa kuu raadinaya waddan horumar ayaynu joognaay u tag inaadeer. oo anigu markaas aan sidaas aan eedaysana ku noqdo. haddii kale walaalay haddii aad qof muslima tahay allahaana alleeyahay isakayda. weligayna si kasta oo hadba fil u soo jisho ama hadba qorshe cusub ula timaado lagama yaabo
inaan shabaqaaga ku dhaco. dhibaato inta aad ii geysatay igu filan ninka ragga ah ilmaha ka soo jeeda waxaan ka ahayn wuu la kulmo. ii gacan qaaday oo marar badan dhiiggayga daadisay, aniga iyo waalidkay iyo nasabadaydaba cayday, igu been abuuratay oo bulshada igu didhay, habeen iyo maalin iigumana sheegatay waxbaan taray, gaalo ii dhiibtay oo xabsi ii dhigtay, dawlad igu dacwaysay oo sharci iga ceshatay. waxaan xasuustaa habeen habeennada ka mid ah nabar ad adigu aniga wadnaha iiga dhufatay, inuu naqasku igu xirmay oo aadan gargaar caafimaad xataa ila raadin. haddaan inaan xisaabtanno oo qofkeenba qofka kale wuxuu taray aad diyaar u tahay inaynu xisaabtanno, diyaar ayaan kuu ahay. gogol ii dhigo, ehelkaaga u yeero, aan wada fadhiisanno, xisaabtana waxaan u ahay diyaar. odayaal ii fariisi, aniguna waan la fadhiisanaya, waana ballan. dhaqaalo intaan anigu ku taray oo adiguna aad markhaati ka tahay, xaashaa lilah ma sheegan, cafis ayay ku yihiin. aan u soo noqdo muuqaalka baraha bulshada wareegay. aadna waad og tahay, anna waan ogahay, ilaahayna waa og yahay in aanan muuqaallo ama sawirro ama waxa weeye wax adeeg ugu saabsan aanan baraha bulshada dhigin, kaa qaadin, soo gudbin, baraha bulshadana aanan anigu geyn, meel lagaaga soo gudbiyeyna aanan markhaati ka ahayn. muuqaallada aad adiga iyo nimanka ku horboodaya aad soo dhigaysaan, soona dhigi doontaan, wax aad ka damacsan tahay adiga unbaa yaqaan. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi baanan wax fiideo ah ama wax sawirro ah oo gabadhaas ku saabsan intaan ka duubay inaanan baraha bulshada gelin. hase yeeshee qoftani waxaanu wada ahayn muddo dhowr sano oo aan wada noolayn. labadeennuba muuqaal sameeyayaal 2 kanaal ayaana lahayn, muuqaallo ayaan samayn jirnay. mararka qaar waxaa dhici jiray muuqaalka oo daaran in aanu isku xanaaqno, isku buuqno, aan kuna kala kacno muuqaalka dhexdiisa, kaamiradii oo shidan annagoo buuqayn. hadhowna muuqaalkii aan duubnay inta muhiimka ahayd maahane inta kale aan iska tuurno ama aan ka soo reebno muuqaalka oo nadiifana aan baraha bulshada usoo gudbino. weligay wax muuqaal ah taleefonkayga laguma duubin aan ka ahayn in aanu u soo gadanay taleefon Samsung ah oo hadda ayadu ay gacanta ku hayso oo gurigeeda yaalla. muuqaalada asaga ayaan u samaysanay, wax ku duubi jirnay oo ilaahayna igu ogi. weligay muuqaal taleefonkayga aan leeyahay kuma duubin. dabadeedna 3 taleefon ayaanba marayaa. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi baan xataa sawir ayada ku saabsan mustalafkayga ku jira. 3 taleefon ayaan maray. 4 sano oo la soo dhaafay haddii aan dib u milicsado, 2019 xabsi ayay dhigtay. 2020 waa kana muuqaalkan. qaladka hal qof qaladka waxa ugu weyn oo dhacay, aniga qof weyn baa ahay. qofkan qaladkiisa qiran runtana ma qirto, runtana ma sheego. marka qaladka ugu weynaa oo aniga qalad keenay, dib isku dhaca keenay, anigaa keenay. ma fahmaysin? ani qof weyna ahay, runta inaan sheegana kama baqaayo. ma fahanteen? marka inaad nagu xushmaysanaan rabaa, inaad nagu halkaas ku xirtaanaan rabaa. ani warka ma hayo qabar saa idinkiisaa ka tihiin, aniga maanta ka ahay. ya waxaan ku faraxsanahayna ma aha, waa waxaan ka xumahay, laakiin way dhacday. wixii hadday dhaceen oo tala fara ka haaday, ma aha in lasii wadwado oo lasii jiijiido oo hadbal ma la jiido oo yaa qaldanaa la dhaho oo yaa saxanaa la dhaho oo kanay waay la dhaho oo keenay waay la dhaho. A few moments later. والحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله قالي وحين قعد صنايا وحال المصورة أنا قال لي هاي وقاون وويب سايت كجرة وسوشيال ميديا. وأنا مصورة أنا قال نكي قبي قعنتيس أنكو أوجا. أنا لبض السنة قبي لبض السنة إلى النولا. أنا قعنتيس كو أوجا. baraha bulshada ayay ii soo fariisatay
si ay sharaftayda magacayga iyo qofnimadeydaba ay u dhaawacdo muuqaal ayayna baraha bulshada ku faafisay iyada ooyeysa 2021 waxay mar kale soo fadhiistay baraha bulshada ayada oo igu eedaynaysa in aan muuqaal ka geliyay goobaha waxyaabaha anshaxumada lagu soo bandhigo 2022 waxay mar kale muuqaal baraha bulshada la wadaagtay oo ay weliba dadka ayada u dhow ay leedahay way caawiyaan ay u qaybisay video aad wada aragsan videogaas waxa ku dhex jira qofka aqal lagu fahmaya nin naagtiisa baraya aan wax dhibaato ageysanayn ay tamayn la abhinayo la leeyahay nooga bax guri waxaana lala wadaagay baraha bulshada si mar kale aniga laygu weeyo waa 4 sano oo xiriir waa 19kii oo boolis liibiyo waa 20kii oo baraha bulshada la isoo fariistay iyadoo la isoo hinay waa 21kii oo la yiraahday sawir anshaxuma oo baraha bulshada iga geli waa 22kii muuqaal laga soo helay telefonkii Samsung guriga yaalay oo la rabo aniga mar labaad in la igu rikaateeyo 2023 kana ma ogi wax dhici doono laakiin waxaan ogsoonahay in loo kaba gashtay in la dhaawaco sawirka aan baraha bulshada ku dhex leeyahay magaca aan baraha bulshada ku dhex leeyahay iyo maskaxdayda in lagu ciyaaro waxaad wada xasuustaan in aan tiifiyada hortooda u soo fariistay aniga oo ka difaacaya wiil ay ayada ku sheegtay in uu muuqaal ka gudbiyay 2017 intaan iskuursan magaciisiyo waxa aan iwanaajiyo ninkayga hore waa kii 10 cisho ila joogay oo romantiga beentan ay la soo jilaay marka nin dhalinyaro ah oo da'yar oo maskaxda ilaahay si xushmada dumarka u haayo iyo soo dumarka u dhaqmay ma sha Allah tabaaraka Allah khabar aniga waxaan ahaa qof shaki badan waxaan ahaa qof iska uqdadaysan dhibaatooyin badan soo mareen ragga xaggooda ma kalso ti haddana dib ugu noqono dhibaatada bulshada idin geysato iyo in la doono kala geyntiina iyo isku dirkeena waxaan ka warqabaa inay xataa ay sawirro khaldan ama waxba waan ka xumayna ku weydiiya fahimay laakiin aad raalli ahaanshiyaha ku weydiisanaya sawirro iyo waxyaabo khaldan in lagugu dhibaateeyo oo ninaad soo sheekaysan jirteen hadda ka hor khadar ka hor uu markuu ogaaday inaad maanta family noqotay xilligii uu khadar waddanka yimi uu markaas si musalsala uu sawirro u soo dhigay baraha bulshada ninkaas horta ku degan yahay ninkaas jarmalku degan yahay magaciisa saddexan maxaa la yiraahdaa wiilka waxaa la yiraahdaa Cabbaas Cabdiraxmaan wallahi muddo yar baan isla soconay 2016 ayuu dambeysay 17 wada dad yani waa sheeko fiican baan dhex martay oo yani waxaan xitaa ku heshiin in aan u tago oo isguursano oo halkan kale maxaa laakiin cadaawada gaarsiiyay bay kula tahay inuu heerka uu sawiradaada u adeegsado baraha bulshada sawirada qofka waxa waaye sawirada marka la soo dhigay waxaan arkay dad badan oo ku qoslaayo anigu ma farxo sawirkayga in public la soo dhigay nin wax soo guursado gabar dhalayo waan ka filan waay runtii masawirka ugu horeeyay 2017 buu soo dhigay masawirka ugu horeeyay hadda la xidhiidhayo sawirkii ugu horeeyay markuu soo dhigay ma tii Cabbaas Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa Cabbaas Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa waxaan la murugoonayaa dhibaatada uu markaas ayada u geystay waayo waxaan ahaa qof la nool qof mar walba ka sheegta qof usan aqoon aan aragno wiilka Cabbaas la yiraahdo oo anigu aan baraha bulshada dadkiis u soo fariistay si aan uga difaaca gabadha darteed waxaan leeyahay walaal dhibkaaga ayaa haysta iga raadhaa dhibkii shalay adiga ay ku marsisay ayaa aniguna maraya maanta waxaan ku leeyahay mar labaad iga raadhaa waayo waxaan la dagaalamayay qof aanan aqoon aanan arag oo la iga dhaadhiciyay inuu muuqaal ka gudbiyay mana ogi xaqiiqatan waayo ma 4 sano oo xiriir ah dhibka adigu amartay ayaan maraya laga yaabay inay ka khaldan Allah waa waayo qof kasta oo adiga gabadhaas la xiriira way uu muuqaal ku duubay aniga un baa isweydiiyay adiga idaawanayna bal isweydiiyo sidee bay ku dhacdaa in qof kasta oo gabadha la xiriira uu muuqaal ka duubo sideese qofka uu muuqaal ka duubay asagoo wadan shirka la jooga aan loo dacweyn karin oo mataqaana maxkamad loo aadi karin baraha bulshada waa ka mamnuuc in qof muuqaal usan raalliga ahayn laga gudbiyo waxaa jira websiteyo aad ku bixin karto amar
kuna siin karto inay kaa saaraan wax kasta oo muuqaala oo ku jira oo xataa wejigaaga ku saabsan ku jira. website-yada waxaa jira kaala shaqaynaya in ay muuqaalkaaga ka saaraan baraha bulshada si nadiif ah. haddii ay damacsan tahay sidaas oo ay samayn lahayd, waxaan aaminsanahay in ay haddii ay waddo sax ku taagan tahay ay ku guulaysan lahayd. laakiin qorshahan waxaan u fahmay inuu ma dhammaato. waa qorshe lagu kala kacsanayo youtube-yada, baraha bulshada, qofna sumcadiisa iyo magaciisa iyo mustaqbalkiisa lagu dheereeyo. waxay is leedahay khadar yuusan guursan, golo nabadi tegin, wax qabsan, dib dambana yuusan u noqonin qof magaciisu saxan yahay. wiilkaas Cabbaas ah markii aan baraha bulshada u soo fadhiistay ee ay murugada iyo dhibaatada ay la nooshahay aan la murugoodayna waxaa la yidhi wuxuu u dagaalamayaa oo la ooyayaa si uu sharci ku helo. waxaan ku dhaaranayaa maanta idinkaan idin dhaaranayaa wallaahi billaahi tallaahi baana wax sharciya oo ayadu leedahay aan haysan, wax baasaboor ayadu leedahay aan haysan, immigration, maxkamad, lawyer 2 sano oo lasoo dhaafay ayaan ku jirnay. sharcigiina way igala laabatay, si toos ayay igu dacweysay dowladda, immigrationkuna sharcigooda way igala laabtay. oo wallaahi qofka marka anay ugu dambaabayo ilaahay ka baq, waayo waxba kama ogi xaqiiqada. ugu dambayntii bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha xukuminina qof idinkoon ogeyn xaqiiqada. albaab xiran gadaashiis wax ka dhacaya cidna ma ogaan karto. Soomaaliduna waxay ku mahmaalaan qof calooshu ka soo jeedo haddaad aragto ha aaminin, kii kala dhimayaa ma ogi. waan ogahay bulshada Soomaaliyeed inay qadariyaan dumarka Soomaaliyeed. waan ogahay in raggu ay mar walba khaldan yihiin. waan ogahay rag iyo dumar in aysan marnamo sinayn. waan ogahay bulshada Soomaaliyeed inay tahay bulsho qadarinta iyo qiimaha dumarku ay aad ugu dheertahay. haddii gabar u soo oydana ninkii habaar, dhaleecayn, fidnayn iyo dhibaataynba la isugu daro. laakiin ogaada dhinaca kalena ninku waa bini aadan, laga yaaba inuu la nool yahay xanuun magacaygii, qiimahaygii iyo qiimkaygii, sharafkaygii iyo dadnimadaydiiba dhaawac ayaa la gaarsiiyey. laakiin u jabi maayo insha Allah nacabka. waxaan ku soo gabagabeynayaa waddan sharcila ayaan joognaa, sharciga aynu kala baxnay sidii aynu ugu kala baxnay maxkamadda, sidaynu ugu kala baxnay ee aa sharcigaa iga ceshatay sidaas si lamid ah tanna aynu ugu kala baxnay, waayo public image-kayga ayaad mar walba dhaawacaysa. fiidiyowidaadii oo la gudbiyey banaan ayabaada lahayn oo lagu sameeyey waxaasoo dhan waa mental abuse waa la yaqaan. mental abuse and cyber crime waa cyber crime waa la yaqaan. cyber crime-kana sharci baa ka yaala. wuxuu la cyber crime ku soo galayaa dhibaatada kaa soo gaarta waa mental abuse waa la yaqaan. marka saa ula socda I know that I know how to deal with that. maskixiyan I know how to deal with narcissistic people. That's why I never get angry, but I get beautiful. haddii aan baraha bulshada ku xifaaltanno dad ama aan dad isku hayno mar walba in rikaatar la igaga dhigo qof aan kala tagnimo doonay. haddii aanu baraha bulshada qof isku hayno, qof kastoo aan is hayno wuxuu isku dayaa inuu rikaatar iiga dhigo ama igu hanjabiyo si awooddayda loo wiiqo, in la yidhaahdo heblaad sawir ka qaaday, heblaad video ka duubtay iyo heblaa waxa weeye oo aad qabtay ayaa dhibkaa gaarsiisay anigoo beri ka ah. laakiin dagaalka anigu aan idinka idinkula jiro sidaas ku joogsan maayo. awooddeydana saas kuma wiiqi kartaan dadka aan baraha bulshada iska haynaan sheegaya. intii caqlila waan la hadlay. wuxuuna noqon doonaa muuqaalkani oo wallaahi ah muuqaalkii ugu dambeeyey ee noloshayda aan barnaamij noocaas uga hadlo. wixii intaa ka dambeeya waxa weeye u soo fariisan mayo qof bini aadan ah inaan qanciyo ama aan wax u sheego. waayo muuqaalkan waxaan u duubayaa qof kasta oo caqli leh, waxaan u duubayaa qof kasta oo ilaahay garanaya oo fahmi kara dhibka loo geysan karaa nin raga oo waxa weeye mar walba la isku daya in la dulmiyo. kala goosa aad marka aad baan idin salaamaya. assalaamu calaykum.